السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا ميلكستو عالم كاد كجوجتان بس كسو نقض iyo kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada podcastgeena maanta iyo dabinada xiriirada maanta jira marka ugu horeysa waxaa mudan inaan tilmaamo dhowr waxyaabood haddaan nin weydiiyo iraahdo gabar noocee ah ayaad rabtaa inay xaas ku noqoto dhowr shay oo sida dadku maanta u badan yahay ba laga heli karo baa dhici karta inuu ii sheego waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo gabadhu horta kow inay qurux badan tahay waayo tallaabada ugu horeysa ee aad guriga ku gelaysaa waa qofka soo jiidashadiisa gabadhu inay qurux badan tahay inay gabar asturan tahay inay gabar kalgacalka iyo jacaylka iyo wanaaga iyo dabacsanaanta dumarnimo laga helaya inay tahay inay waalidkeed baari u tahay inay gabadhu gabar diin leh tahay haddaan weydiiyo dumarka oo iraahdo ninka aad rabtaa waa noocee badi waxaa laga yaabaa inay tiraahdo ninku inuu wax haysto oo dee dabcan uu nin ugu filan yahay inay tiraahdo ninku inuu diin leeyahay inuu jacayl iyo muujiyo nin wax ka yaqaana kalgacalka iyo romanticnimada iyo waa inuu yahay nin caqli badan waa inuu yahay nin karti badan labada dhanba marka waxyaabaha la isu keeno waxaad ogaanaysaa qofku maanta qofka uu la socdo iyo waxa afka uu ka sheeganaya inaysan ba iswaafaqsanayn haddaba muuqaalkeena maanta waxaan kugula wadaagi doonaa 10 dabin oo ka mid ah dabinada xiriirada maanta jira dabinka koobaadna wuxuu yahay isii kolley anaa ku guursan doone arrintan boqolkiiba boqol cidday ku dhacdaa waa dumarka boqolkiiba boqol cidda ay ceebta ku reebtaana waa dumarka boqolkiiba boqol cidda ay xanuunka ku reebtaana waa dumarka haddaba mid baan rabaa marka inaan ku fahansiiyo marka xiriirku uu dheeraado muddo la wada socdo taleefanadu bataan kalsoonidu ay xoogsato baa waxaa dhacda maadaama wakhtigaa la joogo aydan isguursanaynin in ragga qaar ay kuu soo bandhigaan ka waran haddii hadda aynu wax sii samayno haddaynu hadda sii raaxaysano ilaan kolley ugu dambaynta aniga unbaad igu dambayn doontaa nin kale ma guursanaysid maadaamaynu sidan isu jecelnahay haddaad isu kay dhiibto waxba kaama hallaabayan gabdho badanoo marka waxaa jira aamina in ninku hadalkaa uu sheegaya ay run ka tahay laakiin xaqiiqadooda dhabtaa maantaan kuu sheego waxaana hubaa inaadan cid dambe oo hadal dambe kuu sheegta ama ku tiraahda inaadan warkooda meel ka soo qaadi doonin maalinta nin aad isu dhiibto oo uu xaaraan kugu arko gabarnimadaadana uu ku dhaafiyo wixii markaa ka dambeeya magaca agtiisa aad ka leedahay waa magaca gabdhaha marka xaaraanta loogu tago ay leeyihiin magacaas kan qalbigaaga hadda ku soo dhacaya ama laga yaabo inaad afkaba ka tiri laakiin anigu ma rabo inaan hadalkaa foosha xun afkayga ka idhaahdo haddaba magacaasaad agtiisa ka leedahay maalintaa wixii ka dambeeya markaa wixii ka dambeeya wuxuu aaminayaa ama aaminsan yahay in nin walba oo aad aragtaba sidaa isugu dhiibi doonto haddaba midda marka adiga kula gudbooni maxay tahay marka ninku uu ku yidhaahdo waxaan aan wada samayno waa in aad xad iyo meelaad ku istaagta leedahay waa inaad tiraahdo kuma siinayo waa inaad tiraahdo isuma kaa dhiibi karo waa inaad ilaahay xusuusiso oo tiraahdo rabbigii ku abuurtay ka cabso haddaad se isu dhiibto adigoo aaminsan in kalsoonidii idin dhex taallay ay sii xoogsan doonto ama aaminsan intuu ku jecel yahay ka badan inuu ku sii jeclaan doono labadaasu midna ma dhici doonto maalintaa wixii ka dambaysa kalsooni horta kuguma qabay warkeeda iska ilow maalintaa wixii ka dambaysa kuuma arka gabar sharaf leh inaad tahay wuxuu kuu arki doonaa in nin walbood aragtana aad isu dhiibayso walow xaaladdaa aad joogtaanoo cimrigaa da ahaanaad soo gaartay oo gabarnimadaada soo ilaalisay oo isagu uu gabarnimadaada xataa kaa qaaday kalsooni ha sugin marka naftaada ilaasho adigaa mas'uul naftaada ka ah intaad meel isku gowracdo xaaladaha mararka qaarkood internetka wax fara badan baynu maalmalba ku aragnaa gabar odhanaysa biyaa wax la igu daray kadibna sidaas ay igu dhacday maxaad gurigiisa u tegaysaa maxaad meel cidla ah oo cidina aysan joogin oo aysan macquul ahayn qof inuu xataa soo maro oo kugu arko maxaa ku dhigaya adigu meeshaad isdhigtaa lagugu gowracaya ninna ha sugin inuu kuu naxariisto marka maalinta uu ku yidhaahdo isu kay dhiib maalintaasaa naxariistii ku jirtay qalbigiisa oo dhan ka soo dhammaatay ogow haddaad isu dhiibtana berri waxaa dhici karta inuu cudur kugu rido waxaa dhici karta inuu uur kuu yeelo waxaa dhici karta hadhowna uu kugu dafirayaaba wuxuu ku oranaya anigu maan dhalin laakiin qaarkiin waa laga yaabaa commentingana ku soo qortaan DNA baa jiro waa la qaadaya laakiin DNA ha la qaada ama yaan la qaadin gabadhan magac xumada raacday nolosheedoo dhan bay daba taagnaanaysaa waayo markay damacdo berri inay guursato ninka dambena uu ogaado ilmahan ay sidataa inay wacallimo ku keentay ma kula tahay inuu guursanayo intuu doono hala socdo waa ka tegaya waa dhici kartaa inaad aaminsan tahay haddii xataa taasu ay dhacdo oo nin wanaagsan mustaqbalka aan dib ka helo waanu sharixi doonaa waxaan oran doonaa qalad baa iga dhacay laakiin tani qalad maaha ii sheeg meesha ay qalad ku tahay labadiinnu waad ballanteen
meel baad wada tagteen waad isa soo carfisay waad isa soo hagaajisay meel qolow cidlaa baad dharkii oo dhan iskaga dhigtay hawshii baad qabateenoo waad dhammaystirtay maqalad baa kaa la yidhaahdaa maya kama maahan waa waxaad ku tala gashay ood ogeyd haddaba meeshaad isdhigto ayaa lagugu gowraci doonaa haddaadan adigu naftaada ilaashanna ha suginin inuu kuu ilaaliyo siduu doonaba ha u wanaagsanaado dabinka labaadna wuxuu yahay idar yeelo haddii kale iska kay fasax nin aan ka helayo waxa aan rabo ayaan raadsanay way dhici kartaa inaysan gabadhu sidaa hadalka u oran laakiin isagoo kala qaybsan baa waxaa dhacda xaalad markaa jirta darteed inay tiraahdo tusaale ahaan marka aad gabar la socotood ku qabato niman kale iyadoo la sheekaysanaysa bayna dhacdaa inay hadalkan keento oo ku tiraahdo maxaad haysataa ma awood baa maanta aad wax igu tarto miyaad leedahay iyo wixii la mida dee wax qabso shaqayso dee lacagisi macnaha si kale haddii loo dhigo waa jacaylka labadeena ina ka dhexeeya waan kaa iibinaya dareenkan aan kuu hayo inaan kula joogo inaan kula sheekaysto lacag bay ku xirantahay haddaad weydiiso oo tiraahdo aniga hortay see u noolayd waxaa laga yaabaa inay ku tiraahdo dee ninka markaa aan la socdo waxbuu isiin jiray iyo wixii la mida weydiiyo waxaad tirahdaa aaway ninkii marka xoolihiisa aad cuntay dee waanu kala tagno waanu iskeeni weyni micnaheedu waa xoolahaaga intaan cuno ayaan berri hadday iga tustana kaa tegi doonaa si kale haddii hadalka loo yidhaahdo meelahanoo kale weeye meelaha ragga jilicsane ay isa sii dhabar jabiyaan marka oo waxaa dhacda ninku daynba ha ku keene inuu wax u keeno inuu intaa iyada wax siiyo hadduu hayana wuxuu naftiisa ka qadiyey inuu dul dhigo ugu dambaynna ma joogtee way ka tagtaa oo cidlo isagoo ooyaya ayay uga dhaqaaqdaa hadda ka hor waxaad xusuusan karaysaan haddii channelkay kale aad la socoto video aan reaction ka bixiyey gabar bay ahayd ninkan xiriir baa kala dhexeeyey ninku wuxuu naftiisa ka qadiyo ayuu gabadhan siin jiray jawaabtay siisay ma taqaanaa bareegga iskuulka intaan ku jiro xataa kuma filnay tiri waxaad bishoo dhan qaadato macnaha soomaalidu waxay tiradaa mulac dabagooyi waa u dil carruurna waa u ciyaar isagu waxa naftiisa uu ka qadiyey ee rafaadka uu ku keenay baa iyada waxayba la tahayba in aysan 30 daqiiqo bareegay ku jirtaba xataa aysan dhammayn wuxuu bishoo dhan qaato macnaha yastin intaa la eg maxaa keenay ninka in lagula dhaqmo waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee uu arkay inaysan abaal uga haynin inuu bartaa xiriirka ku daayo dad badan oo idinkeeda ka mid ah maanta qofan abaal ku hayn oo ku mahadin baad la socotaa rag iyo dumar ka doontid ba ahaw qofku maalinta uu jaraha kuugu xiro maaran waa macnaha micnaheedu qofka maaran waa aan garanaynin inaadan ka maarmi karin jarana waxaa la yiraahdaa xariga faraska lagu xiro ama geela lagu hogaamiyaa la yiraahdaa macnaha maalinta qof bini aadama aad ka dhigto la'aantii noloshaadu inaysan jirayn inaadan horay u socod lahaanayn inaad murugo u dhiman doonto maalinta wixii ka dambeeyo qofkaasu siduu doono kula dhaqmaya maalinna cajalada farxadu ku daari maalinna cajalada murugadu ku daari maalin siduu doono kula dhaqmaya wax walba oo uu sameeyaba wuxuu og yahay inuu ku badbaadayo waayo wuxuu og yahay inaadan tagi karin labada dhankay doontaba ha noqoto rag iyo dumar oo maanta iga qora qofku markuu ogaado inaadan maarmi karin qofku markuu ogaado inaadan ilbriqsi kasto dhaqan xumo uu kula yimaadaba inaadan ka tagi karin maalintaas waxa ku bilaabato qofku siduu doono inuu ka yeelo waxaana ku huba marka gabadhu ay si dhab ah ku jeceshahay wax lacaga kugu xujayso de kama hadlay markay guur noqoto laakiin intaad wada socotaan hadaadan waxa ii gadin hadaadan casho ii geynin hadaadan waxa ii samayn xujo kama dhigaan dumarku markay ninka si dhaba u jecel yihiin dabinka saddexaadna wuxuu yahay weligaysaan ku jeclaaday qof uma jeclaan laba sababood batan way keentaa waa marka koobaad qofka waxa dhici karta in jacaylkiisii ugu horeeyay aad tahay waa marka labaad waxa dhici karta in qofkani uu rabo qalbigaaga inuu soo jiito inuu ku kasbaday wixii lamida labada dhankay doontaba ha noqoto horta marka hore hadii qofku jacaylkiisii ugu horeeyay aad tahay way iska caadi inuu qofku ilaa xadka qalbigiisu ku jeclaado inuu ka foqi waayo in jacaylka uu ku haya xaddaaf uu yahay inuu masayrkiisu tira badan yahay oo muddo xaaladaha qaar qofku inuusan kugu kalsoonayn waa kugu kalsoon yahay laakiin isaga waxaanu dhib waa ku cusub yihiin haddii marka qofka aad weydiiso tirada weliga xiriir hore ma u soo yeelatay oo haa ku yiraahdo tan dambe noqonaysa oo qalbigaaga inuu kasbado oo qofku ku soo jiito raba kay doontaba ha noqoto marka ugu horeysay qofka aad isku cusubtiin ama weligii hore xiriir ha u lahaado ama yuusan weligiiba xiriir soo marin labada dhinac kay doontaba ha noqotee qaacda ugu horeysa labada qof marka ay xiriir isu soo bandhigtaan oo qof uu soo bandhigto qofka kalena uu aqbalo oo xiriirku uu bilowdo waa caadi jacaylka ugu horeysa inuu ilaa xad daaf noqdo oo labada qof ay
dareemaan sidii inaysan weligoodba cid horay u soo jeclaan ama in aysan weligoodba dib u jeclaan doonin qof kale laakiin qof walba ood xiriir la yeelato isagaasaad ugu jacayl badan tahay waana sida caadiga ah qalbiga bini'aadamku uu yahay say doonta ha noqotee marka qofku hadalkan uu ku yiraahdo kow wuxuu rabaa inuu ku ogeysiiyo inuu ku dareensiyo horta inuu ku jecel yahay waxaana dhacda dad badan marar badan fariimo isoo gaara in qofku marka sidaa lagu yiraahdo ilaa xad uu isdhigto oo qofka uu isu dhiibo qofkii hadhow markuu isbedelo oo ka tago ama laga yaabo inuu ka aamuso iyo wixii lamida in noloshu ciriiri ku noqoto inuu cuntada ka go'o inuu jaha wareero tan marka aan kuleeyahay waa dabinka waa qofku hadalkan marka uu ku yiraahdo ilaa nolol idin dhaxayso qofkan xalaal isuma tihidin ilaa xadka inaad qalbigaaga u dhiibto hadalka dartii mararka qaar way lama ogaan karo qofka bini'aadamka waxa qalbigiisa ku jira ma garan kartid laakiin waxa marar badan dhacda in qofku ujeedadiisu ay tahay inuu iska kaadhaadhacsiiyo qalbigaagana kasbado waynaba dhacda waa laga yaabaa adiga laftigaaga hadday dhegaysanay inaad qof aragtay ama adigaba inay kugu dhacday in qof ilaa xad dhaaf uu jacayl ku tuso kadibna uu ka dibdib kaaga gurto macnaha inuu sidii hore ku noqon waayo inuu fariimahaaga muddo ku qaadato inuu ka soo jawaabo telefoonka in lagugu cabo in markaad damacad inaad la hadasho xataa hadalka si kale uu yahay oo dareemayso qofka isbedel inuu jiro laakiin haddana markaad tiraahdo maxaa kaa khaldan uu ku oranayo waxba igama khaldana adiga marka cajaladaadu waxay ku taagantahay ku dhigantahay qofkan hadalkii ugu horreysay ku yiri hadalkan dambe iyo dhaqankan dambana la yaab buu kugu yahay marka waa tan aan kuu leeyahay qofku marka ugu horreysa ee uu ku yiraahdo weligaa qof adiga kaa horreeya ma soo jeclaanin hadalkaasu sidiisaba in qofku uu ku soo celceliyo wax macnahay soo kordhinaysa ma jirta haddiiba xiriir uu kaala dhexeeyo qofkana ha u fiirsan hadalkiisa waxaad u fiirsataa ficilkiisa haddii ficilka way hadalku waa sahlan yahay qof kastaa ku dhihi kara waan ku jeclahay haddii ficilka iyo hadalku ay lid isku yihiin oo qofku aad aragto inuu iskhilaafsan yahay waxaad ogaataa qofkaas ujeedada uu u dagaalamaya waa in qalbigaaga ilaa xad uu jacayl ku abuuro oo ku kasbado in badanna maanta markaa dadka u fiirsato waxaa dhacda in qofku markuu xoog isu kaa jeclaysiiyo inuu markaa wixii ka dambeeya isu kaa macneeyo dabinka afraadna wuxuu yahay ha ka rumaysan markay gabari ku tiraahdo anigu lacag ma danayo hadalkaasu inuusan sax ahayn ma oran kara been laakiin hadalkaasu inuusan sax ahayn qof kastaa garan karaya dumarku sida la og yahay dhaldhalaalka iyo quruxda iyo way jecel yihiin gabar kastoo adduunka maanta joogta way jeceshahay nolol wanaagsan oo qurux badan inay ku noolaato ma jecla inay afkeeda ka qirato ama ay tiraahdo oo si cad u tiraahdo dee nin aan waxba haysan oo masruufi karin ayaan guri u gelaya haddaad wakhtigaa ku tiraahdo okay lacagta ma danaysid nakeen haddaynu isguursanay marka sheekh baan u tegaynaa tartiib waa laysku keen nikaaxinaya way kaa diidaysaa waxaana ku hubaa haddii gabadha sidaa ku oranaysa ay fursad u hesho nin markay noqoto dhinac dhaqaale wax ku dheer inay ilbiriqsi kasta kaa raaci karto siday doontaba adigu maalin walba ha kuu tiraado waa ku jeclahay dumarku sidoodaba 100 qorshe waxaa laga yaabaa inay hal qorshe adiga kuu sheegto laakiin 15 qorshoo kale u degan haddaad is leedahay maanta gabadha aad la socoto nin kale niyadda kuma hayso ama waxaan kuu hubaa gabdhuhu markay nin xiriir kula jiraan way ogtahay maalinta labadiina xiriirkiinu uu dhammaado waliba siday u badan yihiin baa sheegaya way ogtahay maalinta xiriirkiinu uu dhammaado ninka adiga kugu xiga hadda adiga kula socotaay day waxaan ka wadaa marka inaadan ilaa xad isdhiganin nolosha oodan aaminin gabaraad la socoto hadal ay ku tiri oo ah lacag anigu ma daneeyo lacag way danaysaa waana kuu hubaa 100% midda kale ee aan mararka qaarkood arko waxaa ka mid hadda maalin dhexdaas ahayd Universal TV dood baa jirtay ayaan dhexaasay dhageysanayay waxaa jirtay gabar gabdhaha ka mida waxay tiri ninkaygu hadduusan waxba haysan anigaa dhisaya waxaan isweydiiyey aad dhistid ma xume adigu xaggee wax ka keentay marka hore taas ay isweydiin mudan sax iyadu waqtigaa la joogo ma shaqayso laakiin waxay kula ninkayga anaa meel ka soo saaraya ninkayga anigaa dhisaya ninkayga anigaa wax siinaya laakiin adigiiba wax ma haysatid xaggeed ka keenaysaa ma dhici karta marka gabari inay tiraado ninkayga anaa dhisayo wax siinaya ninaan wax haysan inay arooskii bixiso oo gurigeeda iyadu dhigato oo isaga boorso uun soo qaado soo gal guriga inay tiraado ma dhici karto taasu haddaba waxyaabaha beenaha ee laga yaabo in ay hadalka ku quruxsadaan dumarku ayay tani ka mid tahay lacag ma daneeya markay ku leedahay macnaheedu waa lacagta waan daneeyaa oo waan daneeyaa oo waan daneeyaa
waayo noloshu sidee ku soconaysaa adigu isweydii suuragal ma tahay inaad reer dhisto oo wax dakhliga ku soo galaana uusan jirin macquulnaysan aad bood garan karaysaa marka hadalka ha ku dagmin dabinka shanaadna wuxuu yahay telefoonka iga damay tani labada dhanba way khusaysaa intee jeer way dhici kartaa inaad dadka sameeyay ka mid tahay aniguna fahanteeda marar badan baan sameeyay noloshayda been ma sheegi karayo adoo qof telefoon kula hadlaya laakiin aan rabin inaad intaa la sii sheekaysato oo sheekadu sii dheeraato telefoonka in qofku uu damiyo dabkana ka jaro kadibna uu ku yiraahdo haddii telefoonka chargerkan waayay wuu iga damay laakiin ujeeddo kale markaa qofku uu lahaa way dhacdaa xataa mararka qaar waxa laga yaabaa qof kale inaad la ballansan tahay oo telefoonka dhanba intaad hawada ka saarto inaad danahaaga iska raacato 2 saac 3 saac kadib qofku inuu kugu soo celiyo ku yiraahdo haddii chargerkii guriga waan waayay qof baa qaatay riba cuntay telefoonka daraad buu barkada iga dhexdhacay cilad kala jirta 100 waxood la yaabto ayuu qofku ku sheegaya markaad aragto marka ujeedada u socda waa meeshan markaad aragto qofku dhaqanka iyo waxyaabaha uu rabo hadda inuu ku baro ee kugu cusub wali waxaan ka hadlayaa markuu 3 ilaa 4 goor 5 goor iyo mararka qaar koodba 7 bariba asbuuca ay dhici karto in waxani ay soo noqnoqdaan waxaad ogaataa qofkaasu inuu rabo inuu ka cag wareejiyo hubaal haddaad xataa si kasta isugu dhajiso waad ogaan doontaa dee ma sheegin qofku inuu telefoonkii ku tuso oo telefoonkii jaban yahay iyo wax lamida laakiin inta badan roobkaba waxaa layidhahdaa saxan saxa ka soo horraysa waxaa layidhahdaa qofka jimco waalanaya khamiistuu soo tafaxayta qofku sidiisaba marka uu rabo inuu ku jaro si cad kuuma yidhaahdo inaan ku jaraan rabaa waxaad ku tagtuu ku tusaya inuu xiriirka kuu gaagaabiyo mararka qaar waxaa laga yaabaa telefoonku waa iga damay chargerkiina hooya isticmaalaysay walaashayba isticmaalaysay walaalkaybaa haystay ama chargerkii baan waayey kadibna sidaasaan isaga seexday hadda uun baan chargerkii helay haddaan telefoonka charge garaystay waa ku soo wacay wax la mid qofku marka cudurdaarada marka aad aragto waa dabin qofku uu rabo inuu ku geliyo oo ku baro taa macnaheedu waa in aan waxaan rabaa kulana socdo meelo kalena soo tijaabiyo sahan buu ku jiraa qofku markaas oo kale waa xaqiiqo run ah oo jirta marka qofka aad aragtay dhaqankiisu inuu isa soo bedelayo oo maalin walba uu sheeko cusub ku keenayo qalbigaaga waxaad gelisaa in uusan qofka ilaa xad isku dhajin waayo dad fara badan waxyaabaha ay ku dhaawacmaan bay ka mid tahay aakhirkana qofku siduu qofka kan ugu daalayo inuu marka dambe ogaado qofku inuu qof kale intan oo dhanba la socday si taasu marka aysan kuugu dhicin dabinka naftaada marnaba ha gelin dabinka lixaadna wuxuu yahay marka ninku shukaansanaya uu ku yiraahdo xaaskayga waligay ma khiyaanin hadalkaasu inuu been cad yahay waa loo jeedaa hadalka uu leeyahayna wax cadayna oo la socotaa ma jirto hubaal waxa isweydiin mudan adiga muxuu ka qabanaya tan xaaskiisu miyay ka warqabtaa may kaama warqabto maxaa la yiraahdaa marka tan marka ujeedadu ma ahaananu socdaa inaan leeyahay ninku xaas labaad ma guursan karo ama kumalihi adigu ma jeclaan kartid nin xaas leh waad jeclaan kartaa wayna dhici kartaa isagu in wax ku soo bandhigto wayna dhici kartaa adigu inaad lugahaaga ku raadsataba marar fara badan bayna dhacdaa tani ujeedada markaan u socdaa waxa weeyaan inaadan qalbigaaga aaminin inuusan weligii adiga qof kaa dambeeya keeni doonin gabdha kaa dambeeya wuu la socon doonaa waxaanabana dhici karta adoo isla dee xaaskiisa iyo carruurtiisu la jira inuu gabar kale shukaansan karo waxaan xusuustaa hadda ka hor cajiib nin baa maalin wuxuu iga sheekeeyey qiso wuxuu yidhi ayuubow 2 xaas buu lahaa marka cajiib 2 xaas buu lahaa wuxuu yidhi xaaskayga weyn ayaan isa soo dagaalnay waxay u malaysaa maadaama aan xanaaqay inaan guriga minyarada aaday minyaraduna caawa waxay ugu tirinaysaa guriga gabadha weyn kaana ma aadin ee gabar kale ayaan gurigeeda aaday buu yidhi taasaan shukaansadoo rabaa hadda inaan ku saddexeeyo fiiri marka hamoodin waxaan rabaa qalbigaaga inaad ka saarto nin isagoo xaas leh aad ogolaatay inuu ku guursado gabar kale waa kaa daba keeni doonaa dabinkaa marka inaad gasho ood aaminto gabar kaa dambayn doontaa ma jirto ama weligiiba ninkani gabar kale xaaskiisa lama uusan shukaansan waa kuu hubaa 2 iyo 3 iyo hadda wakhtigan uu hadalkaa kugu leeyahay waxaa laga yaabaa dhowr kale inay jiraan haddiiba uu intaas soo badbaaday adiga intuu kula socdana uu ku badbaado qabo xaaskiisu aysan weli ogaanin waxaan kuu hubaa kuwa kalena inay macquul tahay inay jiraan adiguna kuma dhiiran karti inaad tiraa telefoonkaaga tus aan fiiriyo yaa la sheekaysataa ma oran karaysid waayo wuxuu ku leeyahay qof yahay iska waalin waayo meel buu haystaa wuu og yahay macno badan adigu ma lihid waana tan keenta in ninku gabadha dambe ee uu guursado in uu aad uga baqo gabadha weyn waa sax way jirtaa wax jira sababta uu uga baqayana maxay tahay waayo gurigaasaa laga soo saaraya
meesha tanna waa meel cusub oo hadda meelu aad boqolkiiba boqol u huba ma ahan Soomaalidu waxay ku mahmahdaa miro gunti ku jira kuwa geedtaana looma daadiyo hadda adiga xiriirka uu kula gelayo kasbasho uu raba qalbigaaga inuu kasbado way hadalkan waxa ka keenaya marka inaadan adigu rumaysanin gabar ka dambayn doontaa ma jirto ninkani khaa'in ma ahan ninkani waa daacad iyo wixii lamida inkastoo badi iraado marka aad rabto nin xaasa inaad xaas u noqoto labaad weydii waxa tiraahdaa dhibka ka jira gurigaaga muxuu yahay sababtaad ula guursanaysaa xaaskaaga maxay tahay taas waxaad garan karaysaa aqli ahaan iyo maskax ahaan iyo mushkiladda uu ka sheeganayo gabadha kale waa mushkiladaha jira fara badan oo gabdhaha qaar ragga sabab ay ugu noqdaan inuu xaas kale raadsado way jiraan xaqiiqo weeye inkastoo mowduuc kale ta u baahan tahay in laga hadlo laakiin markaad aragto ninku in uu xaas baleeyahay adigana wax kuu soo bandhigtay sabab baa jirta keenaysa waad weydiin karaysaa wixii macquulo dee caqligaa ka dhaadhici karana markaa uu kuu sheegay laakiin adigu inaadan aaminin cid kaa dambayn doontaa ma jirto hebel khaa'in ma aha dabinka toddobaadna wuxuu yahay marka uu qof kugu yidhaahdo wixii laguu geystay anaa kaa caafinaya inaysan sax ahayn waad ujeedaa waayo qofku waxba kuuma geysan wixii khalad ee qofku uu geysto unbuu sallixi karaya khaladkan iyo siduu u dhacay iyo wuxuu yahay toona kama warqabo xaaladahanna marka ay jiraan inta badan waa marka gabadhu ay xoog u dhaawacantay laga yaabo in hadda xiriir ka soo baxday waxaan u iraado haddii gabar aad xiriir la bilaabayso hase yeeshee goor dhoweyd ay xiriir ka soo baxday ka digtoonow oo bannaanka ka mar waayo waxaa dhacda 90% Soomaalidu maamaha waxaa jirta aad u xeel dheer yiraahdaan waxay yiraahdaan seediga ha isku xumayn walaasha isku hubtide tani inkastoo aysan guur ahayn laakiin haddana waxaa badan in gabadhu ninka ay hadda kala tageen khilaafku dhex yaalo sida muuqatade inay aad wali qalbiga uga jeceshay isaga mar walba ka dhow saa doontid hadiyad u keen saa doontid casho u gee saa doontid xeebaha u soo wareeji saa doontid meel qurxoon u gee waxaan kuu hubaa isaga mar walba qalbiga kaaga xaq leh isaga mar walba qalbiga haday noqoto labadiina isagu xiga maalintuu go'aansaday inuu soo laabto waxaan kuu hubaa hal telefoon oo dhowr daqiiqo unba adiga dhan 2 bilood 3 bilood xiriirkii gabadhan aad la waday intaasay u badan tahay inuu ku burburo oo halka uu ku istaago sababta markaan u socdaa waxa weeyaan haddii qof uu ku yiraahdo anaaba ka caafinaya marmarka qaar way dhacdaa dumarku inay ragga ku yiraahdaan waxaana jirta ninku deewaan nin raga haddii si kasta dhaawac loogu soo geystay waxyaabo badan oo qalbigiisa qofka markaa gubaya macna badan ragga uma sameeyaan waxa xoog u dhaawacmo oo laga yaabo inay soo celceliyaan oo laga yaabo xaalado badan iyo iska ooyeysiina daragto waa dumarka waayo waa emotional inta badan waa dareen waxoodu marka haddii nin maanta uu xiriir kula bilaabayo hase yeeshee adoo hadda xiriir ka soo baxay oo qalbigaagu u dhaawacan yahay uu ku leeyahay anaa kaa mayraya waa beentii hadal soconayana kaasu maaha hadday gabari ku tiraahdo dee dabcan anu kulama talinayo nin raga inuu gabar calaacal uu la hor fariisto oo dhibaato soo martay iyo weliba gaar ahaan gabadha aad xiriir la yeelanayso wixii ku soo maray iyo dhaawacyadii lagu soo geystay iyo inaad agteeda horteeda intaad fariisto ku khushuucdo ood ku ooydo ood maaragtay qalbigaaga u wax soo gocdo ma wanaagsana waayo markaa kuumaba arkaysaba nin adag oo kartile inaad tahay dabinka sadeedaad wuxuu yahay wayna dhici kartaa marar fara badan inaad hadalkan maqashay si fiican u dhageyso intee jeer baad noloshaada maqashay wax walbaba jacaylka ka weyn haddaba mid baan rabaa markiinaan ku tuso haddii lacag la waayo aysan naxariisi jirin tanaasul meesha laga saaro fahanka warkiisaba iska daa cadaalad uusan qofku aqoon daacadnimo aysan jirin jacaylku muxuu macno yeelanayaa macno ma lahan haddaba jacaylka wax walba ka weyn markaad aaminto waxa dhacaysa khaladaad inaad iskala timaado ood isdhigato kadibna qofkii uu aad tiraahdo hadhow marka uu xanaaqo ama uu ka tago ama xiriirkii kuu jaray wax la mid ah inaad tiraahdo sotii aad lahayd jacaylka wax walba ka weyn jacaylku waxyaabo uu ku taagan yahay baa jirta guriga hadda maanta aad degan tahay tiirar baa jira uu leeyahay haddii tiirarka mid ka mid ah oo darbiyada ah haddii la saaro gurigaasu dhinaca waxa laga yaabaa inuu u dumo ama waxa laga yaabaa kulligiisba inuu dumo tiirarka marka uu ku taagan yahay waa lacag iyo naxariis tanaasul in la isfahmo caqli in wax lagu saleeyo oo wax lagu socodsiiyo in cadaaladi ay jirto iyo in daacadnimo la helo in labada qof ay isku kalsoon yihiin iyo waxyaabo badan oo inta dheeraadka ah oo hadalka macaan iyo in dadku maartay ay isu maartay turaan iyo waxyaabo badan baa la socda haddii marka aad tiraahdo jacaylka wax walba ka weyn tiirarkan oo dhan baa micnaheedu ay tahay meesha haday ka baxaan macna ilama lahan
taasuna inaysan wax soconaya ahayn qof kasta fahmi karaya. dabinka sagaalaadna wuxuu yahay qof ii kaa dhaama heli maysid. hadalkan ragga iyo dumarka labaduba way isticmaalaan, sabab baana jirta iyo xaalad keenta. marka qofka dhaqan xumadiisu kaa tanbadatod u dulqaadan weydo, go'aanna aad qaadato inaad qofkan xiriirka uga baxdo, baa inta badan hadalkaasu ama qoraal ahaan kuugu yimaadaa ama si toosa lagugu yidhaahdaa. adigu kay doontaba ha noqoto, dhaqamada una fiirso, bini'aadamku sidoodaba qof bilaa khaladihi ma jiro. ee khaladyada qaar aad la noolaan karto ama aad qofka kula dhaqmi karto iyo kuwa aadan kula dhaqmi karin baa jira. haddii qofka waxaad go'aanka uga qaadatay rabta inaad uga tagta ay tahay kuwa aadan u dulqaadan karin liiska dulqaaddarrada meesha ugu sarraysa ka jooga, macnaa dulqaaddarradaada meesha ugu sarraysa ka jooga hadday yihiin, go'aankaagii aad qaadatay hadalkiisa dhag ha u dhigin ee horay ugu soco. waxay dantu kuugu jirtaa inaad qofka hadalkiisa aadan dhag u dhigin. inta badan marka hadalkan waxa ka keenaya waa qofka cabsi geli. haddaad aragta hadalka qofku oranayo, ujeedadiisu waa inuu niyadda kaa sii jabiyo. marka ugu dambaysa qofka xataa aad sii kala tegaysaan, xumaantiisu heerka ay gaartay, wuxuu kuu sii saadaalinayaa si niyadda uu kaaga jabiyo inaadan qof isaga ka wanaagsan heli doonin. oo isagu ma bini'aadamka adduunka joogu ugu wanaagsan yahay? waa maya. marka niyaddaada ha gelinin qof isaga ka fiican heli maysid. intaasoo sanaan la socday, intaasoo sanu ii wanaagsanaa, intaasoo sanu qofku sidan ii ahaa, waxaasoo dhan macno ma samaynayaan. dabinka tobnaad ee ugu dambeeyana wuxuu yahay marka qofka aad isku caraysan tihiin ee uu ku yidhaahdo waxaa jacaylkaaga iga keenay. tan macnaheedu waxay tahay marka uu khilaaf jiro oo weliba xaaladdiinu ay qasan tahay, baa dadka qaar waxaa dhacday inay qofka caayaan oo aysan waxba u reeban. hadhowna inay yidhaahdaan wax kastoon ku idhiba markaad weydiiso tirada waxaasoo dhan miyaan kaa mudanahay, maxaa kaa keenay? inuu qofku ku yidhahdo jacaylkaaga iga keenay. xaaladaha qaarba qofku waxaa dhacda inuu kuu gacan qaado, alaab hortaada taalla inuu wejiga kaaga dhuftay wixii la mida, hadhowna uu ku yidhahdo jacaylkaaga dartiisay ahayd. laakiin isma keenayso. qofka dhabta kuu jeceli si kasta wixii doonaaba ha dhicin, afkaa intuu kaa xirto halkaa ka baxaa, wixii doona ha dhicin. weliba gaar ahaan marka wixii doona ha dhicin aan ku leeyahay, macnaheedu ma ahan qofku khiyaanayood khiyaano ku qabatay intaa wixii ka dambeeyey rajo ka sii qab maaha macnaheedu. haddii qofku waxa idindhex yaalla idindhex yimid uu qof saddexaad yahay, waxaa sahlan inaad qofkaas saddexaad u daysoodan qofkan u dagaalamin. qofku markuu dhabkuu jecel yahay, jacaylka uu isagu kuu hayo ayaa qofka ilaaliya, ee isagu ismaba ilaaliyaba. kalgacalka uu kuu hayo ayaa qofka wuxuu ka hor istaagaa qof kaloo dhanba inuu damco. laakiin qofku marka wuxuun ay ku jiraan oo labalabaynayo adiga uusan ku hubin ama uusanba ku rabinba, waxyaabaha lagu gartay iska cad bay ka mid tahay in qofku qof kale uu kugu dulwado. haddaad gabar tahay, haddaad wiil tahay, qofkaad maanta la socoto, haddaad mar khiyaano ku qabato, waxaad ogaataa khiyaanadaasu weligeed way soo noqnoqon doontaa. hal mar buu ku khiyaanay, halkaa marku ekee. adigu isagaa bilaabay, adigu dhammeeyaha tahay, adaa joojin kara. laakiin haddaad qofka khiyaanadiisa cafiso, maalin kaleu haddana soo celin doonaa, intay doonto ha qaadato, mar labaad wuu soo celin. qofku hadduu mar been kuu sheegay, maalin kalena been inuu kuu sheegay, wax ka hor istaagaya ma jirto. haddii marka ujeeddadu waxay tahay qofka aad aragto marka uu xanaaqo intuu ku caayo oo qalbigaaga si xun u dhaawaco oo weliba sharaftaada mararka qaar uu maaragtay meelkaga dhac ku sameeyo, uu haddana hadhow ku oranayo jacaylkaaga dartiisa iga keenay, taasu wax jira inaysan ahayn qof kasta ayay u muuqataa. haddaba dhammaantiin intaynu podcast kale dib ugu kulmayno, hadday naftaydu gaarto waxaan idinkaga tegayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.